السلام عليكم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. naf kastaba ha fiirfiiriso oo ha eegto camalkii ay horay u samaysay. haddaba tusaale la qaataa waxaa ugu wanaagsan kitaabka qur-aanka kariimka qowlka Eebbe iyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasallam. haddaba maxaan uga baqaynaa in aan mustaqbalka u diyaar garowno oo aan wax uga qabsanno? waxa aan maanta halkani ugu jawaabayaa in ay jiraan 3 arrimood oo naga hortaagan in aan yeelanno hadaf iyo qorshe dejisan. fadlan ku soo dhawow channelka, subscribe noo saar, gambaleelkana furo si aad u hesho barnaamijyada aan idinku soo gudbin doono channelka Guusha Nolosha 1 ee dhiirigelinta ah. haddaba haddii aan u tallaabno qodobka koowaad ee inoo diidaya inaan qorsho iyo hadaf degsan ee nolosha aan yeelanno waa cabsida. cabsidu waa cadowga koowaad ee qofka leeyahay. marka cabsidaasi ay dareenkaaga qabsato waxa ay sababtaa xaalad xun oo qalqal ku rida fikirkaaga, taas oo keenta in uu ruuxu ka baqo nafsad ahaantiisa iyo in uu ka baqo beritoole waxa dhacaya ilaa heer uu gaaro in uu ka baqo guusha lafteeda. cabsidu inta badan waxa ay ka dhalataa xusuuso hore oo xanuun leh oo qofka horay u soo maray, taas oo maskaxda bini'aadamka ku noqoto fariin taban ama negatif ah oo burbur u keenta maskaxda qofka bini'aadamka. fashilka ugu horeeya ee noloshaada ku dhacay maahan kan ugu dambeeya ee noloshaada aad ku soo qadimi lahayd. haddaba ka dhig fashilka ugu horeeya ee noloshaada ku dhaca guusha ugu horeysa, wadada ugu horeysa ee aad u mari lahayd guushaada. cabsidu waxa ay isku kaa tusaysaa in ay tahay kaaliyahaaga ama saaxiibkaaga kuu sacabtumaya. sidaasi darteed qalqalka ayay waxay kaaga dhigi doontaa muraayad aad u iftiinta oo qurux badan. haddaba si aad cabsida uga takhallustaa waa in aad naftaada ka aamintaa in ay tahay naf han iyo himilo saraba yeelan karta. haddaba qodobka labaad ee naga hortaagan in aan qorsho iyo himilo sare yeelannaa waxa uu noqonayaa asigana tashwiishka ruuxa qofka ah ku dhaca. mashquulka aad noloshaada mashquulisaa amba qalqalka ku soo wajaha ee cabsida ah waxa ay keenaan tawshiish fara badan oo qofka bini'aadmiga maskaxiyan ahaan ku dhaca. xikmad hore ayaa waxa ay tiraahdaa suuragal ma aha in uu ruuxu shaqo isdabajoog ah uu qabto haddii uu camalkiisa waafaqsanaynin aragtidaasi. aragtida naftaada ee qalqalka ku jirta ruuxa waxa ay noloshiisa oo dhammi saamaysaa ilaa ay heer uu ka gaaro in uu noloshu ka quusto. ruux ahaan qofka bini'aadmiga ahi waxa uu leeyahay karti iyo awood u gaara. Thomas Anderson ayaa waxa uu buuggiisa ku qoray mar uu ka hadlayay arrimaha dib u dhaca iyo guuldarrada keena sheeko oo ciwaan uga dhigay guuldarraystaha ugu weyn waa kuwa ka baqa tijaabada cusub. haddaba tijaabi wax walba oo isaga tag wixii aad ku jirtay ee aad intaasoo sane iyo intaasoo nolol ah iyo intaasoo farxadaba ay kaaga lumeen. sanad waliba oo noloshaada ka baxa waxa uu khatar ku yahay naftaada iyo mustaqbalkaaga. sidaasi darteed maadaama aad u sii dhowaanaysid geerida waa in aad u diyaargarowdaa in aad adiga noloshaada wax u qabato. markasta oo aad raalli ka noqoto in aad kaalinta koobaad gasho, waad geli kaalinta koobaad, balse markasta oo aad ku qanacdo raallina aad ka ahaato in aad kaalinta labaad hesho, haddaba ogow in aadan gaadhaynin in ka badan kaalinta labaad. qodobka saddexaad ee ugu dambeeya ee nolosheenna u sababa in ay qorshe la'aan hadaf la'aanba ku noolaanno waxa uu yahay dib u dhigidda. dib u dhigu waa tuugga saddexaad ee nolosha cimrigaaga xada. qof kasta waxa uu cimrigiisu yahay mid qoran. haddii markii uu dhashay ilaa uu ka weynaaday waxba hadafa uusan lahayn, qofka markii uu soo gaaro da'da 18 sano waa xilliga looga baahan yahay inuu yeesho han iyo himilo sare. waa in xilliga looga baahan yahay inuu la soo baxo khibrad,
firfircooni iyo weliba howlkarnimo. howlkarnimadu waxaa keena in aad marka hore tahay qof aan caajis badnaynin, wax walbana aanad dib u dhigin. dib u dhigiddu haddii aan si kale u micneeyo waxa ay tahay waa adiga oo dib u dhiga shaqo aad maanta qaban karto, adiga oo ka yeelay in aad beritoole qabanayso. dib u dhigaha waxa uu helaa marmarsiyooyin aad u fara badan, waxa uuna inta badan doorbidaa in uu raaxaysto, nasto, noloshiisana dejiyo. balse waxa uusan ogeynin mar walba uu noloshiisa dib u dhigo ama uu raaxo ka raadiyo in uu seexdo, waxa uu lumiyaa saacad ka mid ah saacadaha waqtigiisa ee noloshaada. marnaba ha tusin wax nasiino iyo raaxo ah, waayo nasiinada iyo raaxada waa midda jawiga adag aad ku heshay. wadada noqo mid guusha gacantiisa ku fasha, hanka iyo himilada uu leeyahayna gacantiisa ku jeexda oo aan cidi wax ka baryin. ma doonaysaa inaad noqoto qof han sare leh oo himilo sare leh, haddaba isku ilow waxa aad ku jirto ee ah dhalanteedka. beriyaan qaban, beriga xigaan qaban, kan saddexaadaa qaban. waxaasoo dhan waxa ay beddelayaan hankaaga iyo himilada aad leedahay. dib ayayna kuu dhigayaan oo sanadkaa sii socon, da'daa sii kori, cimrigaa sii geli, timahaa sii caddaan, awooddaadana way wiiqmi. sidaa la arjigeed qof waliba waxa aan kula sii dardaarmayaa in aad noqoto qof aanan hooshiisa dib u dhigin, kuna dhaqaaqa tallaabo walbo.